warnimay nimankii Liverpool caawa raaxaysteen oo waa kan 4 gool ku badiyo wax laga qaban karayo waxa ka ilaahay amarkii waa caawa ciidu madaxa waa degsadeen mucaaradu caawa gambarka waa qasaaray nimankan hadda waxay caawa bilaabeen oo dagaalanka Premier League bay bilaabeen oo nimankii Liverpool ahaa guul weyn bay gaareen oo furitaanka ciyaaraha Premier League oo sanadkan waxay leeyihiin waa sanadkeeni bay leeyihiin oo waxa weeyaan sanadkan ciidu waxay rabaan in championka England noqdaan muddo dheer kadib oo waxa weeyaan sanadkii hore ay koobkan ku sigteen oo u dagaalameen oo ay ka daba raftay laakiin nimanka Sheikh Mansour ku xariiro hadda waxay leeyihiin ilaahay ku biri la qabtaa bay leeyihiin arkuy sabtida lagu dhagay leeyihiin Man City waxay la ciyaari doontaa West Ham ayagu caawa hooshooda waa qabsadeen Liverpool caawa bandarka weeyaan qof kasta jooradigiisu caawa si tartiib lagu dhacaya reer Liverpool caawa waxa weeyaan waa sheekaysanayaan waa bilowday waa inkastoo yani ma taqaana anu qaybta labaad gool badan aynu farin hadana qaybtii koowaad bay Liverpool caawa raaxaysteen marka cid caawa raaxaysteen ilma yar yar oo hadda championshipka ka yimaada England ee Norwich ay ku raaxaysteen oo yani ka badiyeen marka mucaaradku caawa yaabayeen waxay leeyihiin arkuwan wax balaayo weeyaan inkastoo qaarkood ay leeyihiin waar Maxamed Qadarow ilmaha yar bay ku boodboodi karaan mooyaane hadhow haday geedu dhabay gaarto ama rumay gaarto waxay wax ka qaban karayaan ma jirtay leeyihiin Liverpool 4 gool iyo gool bay caawa ku badiyeen waxaanay ku garaaceen kooxda kubadda cagta Norwich oo marka Raidisku laakiin caawa ninkii Alisson Barker ahaa ka dhaawacmay way badiyeen oo way guuleysteen oo way raaxaysteen madaxu caawa u degan yahay Liverpool oo durba inay riyoodaan oo ay ku riyoodaan sanadkan in Real qaadi karaan bay bilaabeen balse waxa weeyaan caawa ninkii Alisson Barker ahaa ayaa dhaawac soo gaaray oo qaybta hore ciyaarta garoonka laga saaray waxa weeyaan gacmo weynahaas haduu dhaawacmay ilaahay kaas hadii la yiraahdo kaas dhowr isbuuc maqnaanaya ama bil uu maqnaanaya ama bilayaal uu maqnaanaya maalintii la dhaho Liverpool wiishka ku yeeri doona ninku asagoo kubaddu gamaya ayuu ma taqaana muruq wax ka gaarayo isla markii ciyaartu waa laga saaray gool haye labaad ee la soo galiyay Adrian isla markii uu soo galeba ilmuhu gool bay ka dhaliyaan ma ogtahay kulli fidna cindigee Liverpool meelahay ka adag tahay midkaas goosha ku jira gacmo weynaha weeyaan Alisson Barker waa balaayo hela waa ninkaas waxba laga qaban karayo waa nin cidiisa iyo faraciisa iyo firkiisa iyo qoyskiisa gacmaha leh wax gashtaan yani wada gool hayaal weeyaan marka ninkaas ma loo dhawaa karo Liverpool waxa wado waxa weeyaan marka laga tago Fandaj oo fiican iyo qadka dhaxo iska roron iyo cunugii Maryan iyo kuwa kale iska joogay Henderson iyo waxa ka iyo Wijnaldum iyo Fabinho iyo marka weerarka loo xisaabiyo ragii weynaayo Mane iyo Firmino iyo Salah iyo Wariyaan Dabalki Origi iyo waxaas nin kasto haystaan hadana kulli fidni cindi geel Liverpool shan dadka wareerinaysa ee waalaysa gool haye ka nooshahay waxa weeyaan Liverpool markii hore dib waxay qabi jirtay waa soo dhalayaan waa laga sii dhalin jiray hadda waxa helan nin khatar bay helan oo Alisson Barker arcabada kii waa dhaawacmay kii garoonka laga saarayo Adrian oo soo galay baa goolka laga dhaliyay mooyaane asagu wuxuu ku baxay 4 gool eber buu ku baxay qaybtii koowaad laakiin qaybta labaad markuu ninkan soo galay Liverpool gool haye kasdii loo keeno ninkan Alisson Barker ninka fiican ma heli doono ninkaas yaa ku duceystay inaan la dhihin ninka garoomada wuxuu ka maqnaanayaa bilayaal iyo toddobaadyaal garoomada ka maqnaanay in la dhihin ku duceysta kolay Chelsea wad la ciyaari doontaan arbacada soo aadano koobkii maxaa la yiraahdaa UEFA kii muxuu ahaa Europe koobka Europe UEFA Super Cup la ciyaari doontaan wallahi ma taqaana Toby Abraham iyo markuu Adrian arko waxa u maleynaa Toby Abraham inuu ku wax kale waa u maleynaya aniga iyo kuwii kale Chelsea joogay ma taqaana maradii madaxdii ku degsadaan hadda waxa leeyahay Chelsea wax ma tarayso waa ka tala leeyahayo waxaan u maleynaa Chelsea inuu ku wareerowdo u maleynaya inuu ku waraawdo haday maqlaan ninkii Alisson Barker waa maqan yahay ku duceystay inuu Barker wax badan ka maqnaanay laakiin mucaaradku waxay leeyihiin balaayo helihi waa dhaawacmay ilaahay kuma soo celiyo iska maqnaa bay leeyahay Alisson arrinkaas gool haye waa ninkaas caadi ma aha warninka 2 sano la odaygii weynaayo kabeerkii weynaayo Kamal Daariga 2 sano gool u diiday weeyaan ninka Messi ninkii 2 sano gool hal gool la ka diiday weeyaan marka ninkan caadi ma aha marka Alisson waa dhaawacmayo mucaaradku xiriir yes ha iska badiyaan Elb Norwich la ciyaarayeen maxay kuwa kan ha iska badiyaan maxay laakiin balaayida horta ma dhaawacmino ay leeyihiin Liverpool waa raaxaysatay laakiin sorry xogaa yar qalbigiiba xogaa yar xogaa Alisson baa niyo jabinaya war arki doona kolba ninkaas inuu soo laabto ayuubal waa laga
yaabaa City ayay ku Liverpool ku farxayeen maanta dhaawaca gaaray Lorisani oo garoomadu ka maqnaanaya muddo 7 bilood ah laakiin Alisson dhaawiciisu insaas badan uma xoog badna laakiin wixii warar ku soo karo arki doona Liverpool caawa raaxaysteen waxay ku adkaadeen 4 gool iyo goolka hore wuxuu ahaa mid own goal ay iska dhaliyeen kuwa ka Norwich laad ka yimaaday wariyahan dabaalka Origi Garant Hali ayaa goolka iska dhaliyo kadibna Mohamed Salah ayaa goolka labaad ciyaartu keenay daqiiqadii 19 ee ciyaarta Van Dijk Van Dahab Van Libaax Van Derby waninka laga yaaban yahay difaaca dunidu laga yaaban yahay Van Dijk bana goolka saddexaad keenayo Salah bana ka caawiyo Origi ayaana goolka afraad ciyaartu dhaliyo Liverpool qaybta koowaad 4 gool ay ku baxeen iyo eber kadibna gool hayaha labaad ee yimaaday markii ka kala dhaawacmay ee Adrian ayaa gool laga dhaliyo 4 gool iyo gool bay ku dhamaatay marka Liverpool waa raaxaysteen oo ciyaartii ugu horeysay ee Premier League gool bay ku furteen waxyaabihii hadda laga bartay ciyaartan waxa kamid ahaa waa markii labaad ee taariikhda Premier League goolka ugu horeeya xilli ciyaareedka Premier League la iska dhaliyaa inuu noqdo own goal yani caawa goolkii ugu horeeyay Premier League lagu furay own goal buu ahaa wariyahay sanad barakaysan ma noqon doon man u maleynaya yani markii own goal ku bilowdo horyaalka waxa weeyaan sanad goolasho ama yaraadaan sanadkan oo gool badan la waaya oo kooxuhu waaweynba gool waayaan marba hadii own goal lagu furay Premier League goolkiisa ugu horeeya waxa loo saadaalay inuu sanad balay noqon karayo ay dadku gool ku wareeraan dhaliskoodu marka waa markii labaad baa lagu leeyahay taariikhda Premier League in goolka ugu horeeya Premier League lagu furayo ama goolka ugu horeeya EPL ku dhashaa uu noqdo own goal hore waxaan u dhacday sidoo kale 2005 markaas oo Kyle Walker uu iska dhaliyay own goal ciyaartii Tottenham isagoo u ciyaaraya iska hor imaanayeen kooxda Manchester United marka waa markii labaad taariikhiyan Premier League goolka ugu horeeya laga dhaliyo uu noqdo mid own goal ah ama goal iska dhalisa waxyaabaha kale laga bartay ciyaarta waxa kamid ah Mohamed Salah waxaan wax laga qaban karin libaaxa reer Afrika Mo Salah waxa uu hadda dhalinaya gool uu ka dhalinaya gool 22 kamid ah 23 kooxood oo kala duwan oo Premier League kaga hor yimaaday intuu Mohamed Salah Liverpool joogo waxaan wax laga qaban karin ninkan Ilaahay amarkii markuu Liverpool u yimaado waa kala kacayba waqtigii Chelsea uu joogi jiray wuxuu mid la jeclayn oo la leeyahay warkan wax materials dhihi jiray Roma uu tagay kadib Fiorentina maali kale waa soo laabtay waa kari qatarta ku soo baxay Mohamed Salah waxa lagu leeyahay intuu Liverpool u ciyaarayay Premier League koox kasto ark gool buu ka dhalinay kooxdu arka waa ka dhaliyaa marka laga reebo laba kooxood oo wali gool ka dhalin marka waxa lagu leeyahay Norwich waxay caawa noqotay kooxdii 22aad ee Mohamed Salah uu Premier League kaga hor yimaado oo gool ka dhaliyaa يعني 23 kooxood buu Premier League kaga hor yimaaday iyadoo waxay ahayd kooxdii 23aad ee uu Premier League kaga hor yimaaday Mohamed Salah bay tahay Norwich laakiin 22 koox oo kamid ah 23kaas kooxood ayuu gool ka dhaliyay Mohamed Salah balse laba kooxood baan wali Mohamed Salah gool kaga dhalin Premier League waa Manchester United haday aragto Manchester asagoo barxaaba Ilaahay amarkii yani si kala noqdaaba yani way ka jabnaataa oo yani burhaantiisa ma kacdo Manchester afar ciyaar buu ka hor yimaaday still gool kaga dhalin Premier League sidoo kale Swansea City ayuu isna laba jeer ka hor yimaaday ayanu aanu laba wali gool ka dhalin marka waxa lagu leeyahay Mohamed Salah koox kasta oo Premier League kaga hor yimaado gool buu kaga dhaliyay 23 kooxood kaga hor yimaaday 22 mid gool buu ka dhaliyay Manchester afar kulan buu ka hor yimaaday asoo indhaha taagtay oo iska baxayo gool ka dhalin marka Manchester markuu arko asagu cimaamad ma lahan marka afar kulan Manchester wax kama dhalin Swansea City laba kulan waxba kama dhalin marka Swansea Manchester ba labada kooxood wali Mohamed Salah uu kaga hor yimaaday Premier League oo aan wali gool kaga dhalin Chelsea waa ka dhaliyay Arsenal waa ka dhaliyay City waa ka dhaliyay Tottenham waa ka dhaliyay laakiin Manchester United ayaa dhibaysa kooxaha waaweyn iyo kooxda Swansea City ah wali waxa lagu leeyahay Liverpool waxay noqotay kooxdii ugu horeysay oo 4 gool dhalisa qaybta koowaad ciyaarta ugu horeysa Premier League يعني waxa lagu leeyahay Liverpool waxay noqotay kooxdii ugu horeysay 4 gool dhalisa qaybta koowaad maalinta furitaanka horyaalka Premier League ama kulamada koowaad ugu horeeyay Premier League yani soo birina waa la ciyaari doonaa oo maalinta ku xigta waa la ciyaari doonaa Premier League marka waxa lagu leeyahay Liverpool waxay noqotay kooxdii ugu horeysay oo qaybta koowaad ciyaarta 4 gool ka dhalisa kulamada ugu horeeyay xilli ciyaareedka Premier League tan iyo markii ugu horeysay ay dhacdo waxay ahayd Agosto 2006 markaasna Manchester United ba 4 gool ka dhalisay qaybta koowaad kooxda Fulham ciyaartii horeysay ee horyaalka marka waxa lagu leeyahay waa markii ugu horeysay Liverpool waxa weeyaan kooxdii ugu horeysay iyo 2006 ee qaybta koowaad ciyaarta ugu horeysay horyaalka 4 gool dhalisaba wiil yar waxa leedahay isagu waxa jiro taariikh sameeyay Alexander Arnold waa nin qatar badan wiil karuunin cajiib weeyaan waa nin dambeed kamid ka ciyaara ninkan runtii mustaqbal buu leeyahay Arnold wuxuu noqday ciyaartoygii ugu horeeyay
oo gool caawiya 5 ciyaaro isku xiga Premier League tan iyo sidan waxa hore u sameeyay Mesut Ozil oo 2015 dhowr ciyaar isku xiga isna gool caawiya marka cunugan Arnold dhagaha dhaadheer leh khatar waan ku yiri cunugan waa meel u socda kan halis waa 5 ciyaar xiriir hadda gool la yaabaa lagu leeyahay yani gool caawinaya baa lagu leeyahay ciyaartooyga lagu magacaabo Timo Piku waa Timo Puki ayaa ahaa ninka qura ee caawa Norwich goolka u dhaliyo waana goolka ninka u keenay Norwich goolka ugu horeeyay Premier League waa ninka u keenayo walu laga badiyay sidoo kalena ciyaartooyga lagu magacaabo Onal Hernandez ayaa sidoo kale caawa noqday ninkii ugu horeeyay ee Cuban ah ama Cuba u dhashay oo taariikhda ka ciyaara Premier League wadanka Cuba ayaana caawa qayb ka noqday 114 wadan oo kala duwan oo taariikhda ciyaartoygooda ay mataleen ciyaaraha Premier League England marka waa Cubankii ugu horeeyay ciyaartooyga la yiraahdo Onal Hernandez ee ciyaara horyaalka Premier League waa nin Cuba ah 114 wadan marka uu ciyaartooy kala duwan ka socda ayaa horyaalkan uu taariikhda ciyaaray marka nimankan Liverpool la yiraahdo waa raaxaysteen oo caawa madaxaba u dagan taageerayaashoodu waxay leeyihiin haddaba bilownay ugaartiin ugu horeysay Premier League ay leeyihiin sanadkan annaga ayaa iskale horyaalka leeyihiin waxa lagu leeyahay Liverpool ilaa hadda loogama badin kulan ka tirsan Premier League garoonka Anfield tan iyo 2017 bishii Abriil 23 ka war nimankan xoogooda Abriil 2017 ugu dambeysay ka war iyagoo Anfield lagu garaaco nimankan Liverpool yiraahdo markaasna waxay ahaayeen kooxda Crystal Palace oo kooxdii Samuel Allardyce uu watay bay ahayd maalinka 3 dhibcood halka ku qaatay marka tan iyo 2017 nimanka Maaro waa loo laayahayo gurigooda waa lagu garaaci laayahay runtii Liverpool waxaan wax laga qaban karin runtii haddaan been la sheegay nimankan yaa in la habaarayo mooyaane nimankan haday ma taqaanaa si kale lagu celi karayo nimankan waxaan habaar ahayn habaarka xataa lagu ma karan u maleynaya kuwa niman awood badan oo qatar badan ah runtii nimankan sanadkan waxay u socdaan inay soo afjaraan inkaarta muddada ka haysata ku guuleysiga ciyaaraha Premier League waxaana ninka la yiraahdo Mohamed Salah tani markuu ku soo biiray kooxda kubadda cagta Liverpool uu dhalinaya 55 gool oo Premier League tan iyo markuu Liverpool yimaaday ma jiro ninkan ciyaartooy ka gool badan oo Premier League ku jooga 2 sano la soo dhaafay isaga goolinta Premier League ku qaadanay still asaga ugu cadcado ninkan waa ninan waxba laga qaban karin ba oo aan la joojin karin marka Liverpool caawa ka yar raaxaysteen oo madaxba u dagan yahay war mucaaradow idinka ka qaldan ma waxaad u fariisateen oo gambar u dhigateen in Norwich ay ka badin karto ama ay celin karto Liverpool war caawa gambarku idinku qasaaray mucaaradku waxay iska jeclaayeen mugtaay waxay ku leeyihiin Maxamed Qadar oo kuwa in laga baday iska jeclaan ama la celiyo yaa u noolaan lahaa Maxamed Qadar oo kuwa horyaal qaada ma noolaan karna reer Chelsea iyo reer City iyo reer United iyo reer Tottenham iyo reer Arsenal waxay ku leeyihiin Qadar waxa kuwan oo baday ma noolaan karna niyo caawa iska fiicnaan lagu dhigay ku leeyihiin qaarkood ba gambar dhigtay wallahi gambarkaas waa ka khasaaray gambarka oo ma Norwich baad u fariisanaysaa waxaad isleedahay Liverpool bay celin kartaa war nimankan idinki waaweynaa la yaaban saad u celin lahaydeen markaas Norwich taageereysaan war Norwich wax kama qaban karaan ilmahan yariiska nimankan waaweynka ku daynina wax laga qaban karaye caawa gabarku waa qasaariyo Liverpool horyaalka kulankii ugu horeeyay dhibco waad qaadateen oo 3 dhibcood ugu horeysay waad qaadateen Premier League caawa ciidamadiina garabka lagu ma haysto